taasi ma ujeedaa waa originalka tana waa generic waxaa dhacday inaan dawadaasi u qoray canug anoo ka guurahaya xanuunkiisa anoo fiirinaya aysa dhacday in tan loogu bedelo ama tukataya hooseysa loogu bedelo tusaalahaasi waa arrin mar walba dhacda khaasatan farmashiga ka dhacda maxayse u sameeyaan Soomaalida ama dadka farmashiyaasha u sameeyaan waxay fiirinayaan dawada nooca ay hayaan maadaama originalka ay haynin lacagta inay dhaaftay ay diidan yihiin ama se Soomaalida badanaa farmashiyaasha dadka dad pharmacy soo barteen ama iskuul xataa soo mareen ma ahan caafimaad xoogaa baa la baray dawooyinka la kala baray danka malaha lacagtiisu fiirsanaya dawadii toos buu kugu bedeli dhowr bari kadib cunugii aad dawada siisay oo xanuunkiisa aad qiimeynayso arkaysa xanuunkiisa inuu dawadan originalka u baahan yahay ayaa waxa ku imaanaya asagii oo waxba caafimaadin oo dhakhtarka laga yaabo inuu markaasi uu culays ka saaro ama eedda saaro waa arrin common oo dhacda waxaase kaloo dhacda in dawada nooca aad u qortay complete laga bedelo oo nooc kale la siiyo mararka qaarkood too xataa aan isku qabiil ahayn oo adoo dawo antibiotic siisay ama dawo qandha siisay mid kale laga bedelo asagoo si fiican qoraalkii wixii aan fahmayn u fiirinay maadaama waxaan uunan si fiican u soo baranin khaladaadka farmashiyaasha aad ay u badan yihiin mararse waxaa dhacda in dosage aad u qortay maadaama annaga the same drug ama isla tii marna laga yaabo xanuunku inuu fudud yahay on dosage ama tayada u yarayno marna tayada aan u badin annagoo ka guurayna xanuunka cunuga haya ama infectionkii ama wixii la midka intuu badan yahay laakiinse waxaa dhacaysa anigana aan u taagnaa in nin aan weligii xataa iskuul caafimaad u soo marin waxba soo barin dawo inuu intuu saa u fiiriyo prescriptionkii aad soo qortay wixii dhan uu ka bedesho ama waxaan khalad waaye u dhaho marka taas waxaan oga digayaa maanta sababtoo caruurtu jirkooda wuu nugul yahay dawada zaa'id bay dhaqsay u saamaysaa dadka waaweyn lamid ma aho waxyaalo badan lagu fiirin karo ama lagu baraawaanayn karo marka dawada la idiin soo qoro khaasatan ilmihii la idiin ku soo qoro ka taxadara inaan la bedelin haddii la bedelo waa in dhakhtarka loo sheegaa sababtoo ah haddii wixii laga bedelo oo wax kale lagu siiyo cunugaada inuu ku caafimaadin ama mararka qaarkood ay hataa caafimaad ahaantiisa khatar ay ku noqotaa dhici karta waa anigoo Dr. Cabdiqaadir dhakhtar caruur wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh